أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. waa suuqa xaafadda hanti wadaag ee magaaladan jowhar waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshado watay kaasi oo looga soo horjeeday kabo la sheegay in qaybta hoose ay uga qoran yihiin magaca allah. qaar ka mid ah dadkii banaanbaxan dhigayay oo la hadlay warbaahintan city ayaa sheegay in aan la aqbali karin in kabo ay ku qoran yihiin magaca allah lagu dhexgalo gudaha magaaladan jowhar. ma yeelayna mana doonayna mana u dul qaadanayna waxyaabaha waddanka ka dhacaya indhaha ayna hayaan cid alla iyo cidda kab laa ilaaha ila allah ay ku qoran tahay ciddii sidatoo la arko qorta laga goynaa. maanta waxaa kabaha ku qoran allah oo maanta meelo la soo geliyo doona meeno kabaha faashiyonka doona meeno kabaha faashiyonka ma doona meeno oo madax allah lagu soo qori ya waa inaan nala qabtaa. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar. waxaa laga rabaa ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe ku nool kabaha magaca ilaahay ku qoran yihiin ee musqulaha lagu galaayo dad muslima hadday yihiin waxaa laga rabaa inayna gubaan saaca la taagan yahay hadday gubi waayaanna waa dil toogasho waa dilaynaa. muslim ma ahayn waa dilaynaa waa israa'iil. waxaa idinka rabaa dad gaalo aan rabaan inay kabo ku soo qoraan allah inay kabo ku soo qoraan allahu akbar annagana ma rabno inaa diintahayn inaan gadana ma rabno hadday kabo allahu akbar ku soo qoraan annagana muqsho aan la galno waa mid aad iyo aad u xun. dad muslimiin aan nahay waxaan diyaar u nahay inay gaalo hadday waxaas ay samaynaysa aan aragno inaan weliba aan jaharno mana aha inaan kaba anaga musqusha aan ku golno waxaasna marabni allah takbiir waxaasna marabno gaalna meel alle meeshaa joogto ay la jahaada doonnaa waxyaabaha ay wada hadday dhaaf wooyeen mana rabno diinta inaan ku dhimnaana diyaar u nahay. si kastaba sida la sheegay kabahan ayaa waxay magaalada soo galeen bishii aynu kasoo gudubnay ee juulaay waxaana dadka qaarkood ay ku andacoonayaan in waxa ku qoran kabaha aysan ahayn allah si ay tahay oliva. waxaana xiran ganacsigii waradada kabaha ee suuqa xaafadda hanti wadaag sababo la xiriira banaanbaxa ka dhacay saakay magaaladan jowhar. abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city jowhar.